26 juun waxaa xornimada ku hormaray waqooyi 1 luuliyana waxaa laga xoroobay gobolada koonfureed ee Talyaaniga. waxaa jiray ururo iyo dad dhalinyaro ah oo adinkoo kale ah oo u taagnaa xornimadan keenay, soo halgamay, xisbiye samaystay. uu ka mid ahaa SYL, uu ka mid ahaa HKDM, xisbiga la dhihi jiray. labadaas xisbi waa ugu weynaa. xisbiye kalena waa jireen dadka halganka qaybta ka ahaa, inkastoo uu leego dhalinyaradii 13 ahayd oo SYL ay qaybta ugu muhiimsaneed qaateen. maalintaas iyo maanta wax badan ay ku kala duwan tahay. maalinkaas waxaa jiray Soomaali midaysan, cuqdad aanan qabin, qabiil aanan aaminsanayn, Soomaalinimada iyo dowladnimada aaminsanaa. dareenkoodana uu ahaa in dadka Soomaaliyeed oo ka dambeeyay ay u dhintaan inay xornimo ku noolaadaan, ilmahooda iyo walaalahooda iyo wiilashooda. runtii nasiib daray noqotay maanta oo 62 sano laga joogo in aan dowladnimadanadii ay marxalad adag ay sii gasho, gumaysi kale oo qarsoon aan galno oo meelo kalena looga soo maleegay. niman wiilashaanadii ah maskaxda laga qabsado, si qaldan loo isticmaalo, magacyo loo bixiyo, dadkoodii lagu diro, dalkoodii lagu diro, dowladdoodii lagu diro, calankoodii lagu diro, hooyadoodii aabbahoodna lagu diro. maanta marxaladaasaan dhaxalnay. runtii quality-ga markii laga reebo dadka tiradooda iyo aqoontooda iyo magaagaasay yaraayeen. maanta laga aqoon badan yahay, maantay Soomaali ka tiro badan tahay. saad maqasheen taariikhda ku haysaan, halgankan wuxuu ahaa halgan siyaasadeed. 13 nin oo dhalinyaro SYL la yiraaho ka bilowday, waxay u istaageen inay dibad iyo gudaba ay u taagnaadaan in xornimo la qaato. maanta Soomaali meel walbay joogto 70% waa dhalinyaro. 70% dhalinyaro waaye. marka dhalinyaradii hore waa ka badan tahay. dhalinyaradii baa marka qaarna si qaldan loo isticmaalay. adinka oo si fiican in la idin isticmaalo ahaydna waa culayskii baa idin saaran. waxaan u baahannahay marka insha Allah haddii Ilaahay yiraaho hambalyo sanadkan sanadkiisa nabad Allah nagu gaarsiiyo. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaan ku dayasho fiican aan helno, xornimadaanadii aan haysano, midnimadaanadina aan haysano, Soomaalinimadiina aan hayno. waxaan Soomaalinimo ahayno dad deeqaaya male. qabiilka mushkiladda uu leeyahay waa basasho kolba xub marka qaadi waa sii soconaysa ilaa meesha ugu dambayso. wuxuu ku dhamaanayaa nin odaya ilmihii uu dhalay oo 2 islaamood ay kala dhaleen bahebel iyo bahebel ku soo dhamaanaya, meel ku dhamaada male. suu u socdana sida diiniyanka ahna la tacaarifo waaye in la isku garto oo la yiraaho nasabeydii iyo isgarashadii iyo la yiraaho ninkan waa magacii qabiilka lagu daro. way ahayd ma ahana inaan sida aan u isticmaalayna loo isticmaalo. waa wax intana dhigay waaye. maanta qarannimadaanadina burburiyey, gobonnimadaanadii iyo xornimadaanadina meesha gaarsiiyey waaye. meesha aan ka soo noqonno waxaa Ilaahay mahadiisa ah oo la rabaa inaan dhiirigelinno oo ka shaqeyno. Soomaaliya dowladda centraalkeeda waa ka baxday, nidaam federaal ah la qaatay si dowladnimadii Soomaaliya loo soo celiyo oo xal loogu helo dowladnimada. marka si maadaama nidaamka federaalka la qaatay ma dhamaystirno sidii la isu raacay iyo sidii uu yahay, laakiin hadda suu u dhisan yahay waa bilow fiican. annaga haddaan nahay reer koonfur, weliba reer koonfur galbeed, dadkii markii xornimada la qaadanayay oo dowladnimada la helay u taagnaa baan ahayn in nidaam federaal dowladda laga dhigo oo centraalka laga daayo oo dowlad federaal la dhiso. waagaasaan raadinayna. waxaan aaminsanayn haddii dowlad federaal la dhisi lahaa odayaasha awowyaalkeen ay aaminsanaayeen sida maanta loo burburay iyo sida la isu nacay la isuma nici lahayn. nin walba maamulka dowladda federaalka waxaa laga wadaa dowladnimadii waa jirtaa, dowladdii Soomaaliya waa jirtaa, midnimadii Soomaaliya waa jirtaa, laakiinse maamulkii baa la daadejinayaa. tuulo kasta iyo magaalo kasta dadka deegaankaas degan yaa maamulanaya, ayagaan iska soo dooranayo. waxaa la rabaa diinsoor dadkeeda inay ismaamulaan, inay golo deegaan dhistaan, inay guddoomiye soo doortaan, inay taliya saldhig ayaga ay leeyihiin samaystaan,
inaanan loo turjumin qof kaloo meel ka yimid uusan maamulin waa daadejinta maamulkay ka mid tahay sidaasoo kale diinsoor markii saas maamulka loo daadejiyey haddana waxaa la rabaa in horey loo sii socdo misra ay gaarto tuulooyinkii maamulka la daadejiyey degmooyinka dhanna saasoo kale qansax dheere bardaale waajid xudur degmo kasta waa nidaamka federaalka intaas waaye waxaa weeye dadkii baa maamulka la gaarsiinayaa ayagaa waxay rabaan dadkoodii u adeegayo bulshadii marka ilaahay mahadiisa nidaamka federaalka bilow fiicanaan haynaa wuxuuna u baahan yahay in loo istaago loo dhabar adeego la dhammaystiro marka waa nin walbaba isku tasho waaye madaxa ninbaa dadkii badnaa oo la yidhi ciidanka afgarasho aan samaysanno oo la yidhi maxaan isku afgaranaa madaxa mayraxa lagu xirtaa la yidhi waxaanu dada dhowr kunoo ciidan ayaa madax mayrax ugu xiri karaa la dhaha ninkii taliyaha soo booday wuxuu yidhi nin kasta asaga ha ku xirto marka qofkoo keligiis madaxa mayrax waa ku xihan kara laakiin ciidankan dhan looguma xihan kara sidii o dhana loogu xiray nin walbo oo naga mida shacab ciidan dhallinyaro waxgarad siyaasi aqoon-yahan mas-uuliyaddana saaran waxaa waaye dalkaannaga iyo dadkaannaga iyo dowladdaannada inay laxjeclo gooni annaga leedahay runtii waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sido oo habeen iyo maalin u dhabar adeygaya difaaca dalkan u taagan u dhaawacmaayo u dhimanayo u qadaayo oo qabow u joogo u lugaynayo aadaan ugu mahad celinaya way dadaaleen waa dareemi karnaa duruufaha nahaayo cunaqabatayn caalami ah jirto oo hubka ah cunaqabatayn oo awooddii rabnay lagu dhammaystiri karin laakiin sida ii muuqato horaa loo socdaa meel fiican baana gaari doonaa dowladnimadana waa adkaan doontaa waxay u baahan tahay adkaysi waxay u baahan tahay isku tashi waxay u baahan tahay qalbi fiicnaan waxay u baahan tahay daacadnimo ninba wakti buu leeyahay waktigiisaasaa waxaa la rabaa inuu si uu oga soo bax xigmada waxaa waaye nin walba waaliduu leeyahay walaaluu leeyahay ehel buu leeyahay waxay rabaan inuu gobonnimo uu ku noolaado inuu noloshuu rabo helo inuu amni ku helo laakiin maanta haddii guriga annaga aan ka welwelno wax ka daran male waxaa kaloo intaas sii dheer dadka soomaaliya ugu tiro badan populationka waa dadka koonfur galbeed ka soo jeeda maanta macluusha soomaaliya lagu sheegayo dhan dadka sida goonida ay u saamaysay waa dadka reer koonfur galbeed waxyaalaha sababayna waa meeshii ugu khayraadka badnayd ugu soo wax soo saarka badnayd ugu beeraha badnayd ugu cunabada badnayd adduunyada maanta cunno yari baa ka bilaabatay adduunkao dhan ay ka bilaabatay meelaha cunnada ugu badan laga heli jiray waa dadka wax soo saara waaye abuurka wax abuuro waaye adduunyada waxa laga cuno oo dhan qamadiga u badan hadda Ukraine iyo waxa isdagaalaya Ruushka labada dal ugu badan oo qamadiga uu ka soo baxo ahaa cunno yaraanta waxa keenaya qayb ka tahay annaga marka Soomaaliya markii la yiraahdo dadku ugu soo wax soo saarka badan aan ahayn hadday cunno yaraan dhacdo waxay ahayd inaa kaydka annaga u yaalo waa wixii aan soo dhaxalnay taariikhdana waa ogtihiin nin dadkii deegaanada ay deganaayeen haddaan laga soo barkicin abaar waa loo dul qaadan karay bakaar baa jirtay kayd raashinaa jiray beer baa jiray haddii sanadkoo roob la waayo sanadka kale wax lagu gaaray iyo 10 sano wax lagu gaaro waa la heli jiray nin waxaan arkay aniga hadda ka hor 80 sano jiro weligiis godkayga ma arkin dhahay salkiis marka kaydka cunnaday ka mid tahay marka waxa dadka ku qasbay inay soo barakacaan oo inta keenaan abaarta roobka iyo maahan waa dhibaatada uu ku haya shabaabka duruuftiisii ay u adkeysan waayeen gumaysigiisa bay u adkeysan waayeen haddii qofkii loo diiday inuu beerta abuurto haddii qofkii loo diiday inuu beerta fasho lagu ganaaxay lacag keen abuurkii lacagaa laga rabaa falkii lacagaa laga rabaa goysmadana nusa laga qaadanaya la dhahay waa nasiib daro qof kastana intaasuu ka cabanaya marka aad iyo aad u mahadsantihiin dhalinyarada ciidamada mar labaad waa idin mahad celinayaa duruufta ku shaqeysaan waa ku mahadsantihiin dalkiina iyo dadkiina sidii haddaba xornimada aan ugu dabaaldegayno beritan hal in kugu dabaaldego dhalinyaro adinkoo kale xornimadan keentay maantana dadkiina gumaysiga iyo maxay ahayd ciqaabta lagu hayo inaad ka qaadaan yani ka rabnaa oo la awoodi waayo in gurigiisa qofka uu joogo meelaha qaar waxaa ka bilowday dadka in la canshuuro hadda abuurkii wax soo saarkii baa la qaybinaya laakiin maalin hore shiraan ku jirnay nin madaxda ka mid ah wuxuu yiri waxa ka bilowday deegaanka anaga dadka in la cashuuro suurtagal anaga in deegaanka anaga ka jirto anaga ma maqlin laakiin dadkii lacag laga qaaday reerkan meeqa joogto 5 lankiiba intaas la ku fadeeyo meel ka dhiman oo la aadi lahaa ma jirto dadka anaga aan culayska ka qaadno aan u gurmano wixii la tari kara aan tarno
aan isu kaalmayno aan ka shaqeyna sidii tacabkaanagii iyo wax soo saarkaanagii aan ugu noqon lahayn aan ka shaqeyna tuulooyinkaanagii iyo degmooyinkaanagii dadka sidii dib loogu celin lahaa laguma noolaan karo magaalo keligeed magaalo dadka dhan kuma wada noolaan karaan nolosha rasmiga ah waa baadiyaha waa nolosha rasmiga ah waa beeraleyda waa nolosha rasmiga ah waa xoololeyda laakiin haddii kulliga annaga nolosha magaalo laga dhigo oo laga fikiro nin walbaba uu yidhaaho kaarka maxaa ku soo dhacay hay-addii maxay bixisay hay-adda ma sii jiri doonto kaarna ma sii jiri doono adaa lagugu curyaaminayaa noloshaadii aad taqaanay baana ku habsaamaysaa marka nolosha caadiga ahaan naqaanay aan u noqonno dadkana ha la guubaabiyo deegaanadoodina aan ku celinno difaaca iyo la dagaalanka shabaabkana aan u midowno hadda wixii ka dambeeyana waxaa waaye ciidda korkaaday ku jirtaa nin kastoo naga mid ah ha u diyaargaroobo dadkan culayska saan uga qaadi lahayn aad iyo aada u mahadsantihiin hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu